in diinta soo gala. tobankii bishii afraad 1339 hijriyada oo ku astaysneyd 21 bishii 12aad ee 1920 waa xilligii uu ifka ka tegay geesigii muslimiinta ee geyigan asheykh sayid maxamed cabdulle xasan. 100 sano oo dhammaystiran ayaa ka soo wareegatay geeridii sayidka iyo halgankii uu hogaaminayay ee daraawiishta. sayidku waxa uu noolaa muddadii u dhaxaysay 1856 ilaa 1920. waxa uu ahaa hogaamiye diimeed oo diiday in dadka muslimiinta ah la gumaysto. wuxuu la dagaalamay gumaystayaashii ingiriiska, talyaaniga iyo xabashida. dhab ahaantii wuxuu ishortaagay damacii gumaystaha, waxayna culimmada iyo taarikhyahanadu sheegaan in sayidku uu muddo qarni ah dib u dhigay gaalaysiin ay gumaystayaashu ku samayn lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. inkastoo ay geesigaasi gumaystayaashu ugu yeeraan magacyo aanan munaasab u ahayn sida maantaba ay ugu gafaan culimmada dhagarahooda fahamsan, ayaa haddana waxa uu dhanka kale Soomaalida uga tegay taariikh ifaysa oo ay ku faanaan. gumaystuhu lama dagaalamin sayidka intii uu noolaa oo keliya, ee waxa uu la dagaalamayaa ilaa maanta oo hal qarni laga joogo markii uu dunida ka tegay. waxay ka qoreen buugaag ay ka buuxaan been abuuradyo badan. been abuuradka waxaa ka mida in sayidku uu u gafay lahjada mayga ah oo looga hadlo qaybo ka mida koonfurta Soomaaliya kolkiibay yidhaahdeen uu dilayay sheekh weyska ay suufiyada qaar caabudaan. labadaasi arrin oo xataa dhowaan ay baahiyeen warbaahinta Maraykanka waa been abuurad cad oo aanan sal iyo raad toona lahayn. barnaamijkii ay idaacadda alfurqaan ramadaankii lasoo dhaafay ka diyaarisay halgankii daraawiishta waxaa ku jira allah u naxariista ee awjaamac cumar ciise oo ah ninka koobaad ee laga soo xigto taariikhda daraawiishta. waxaana waraysi hore oo looga qaaday dalka Jabuuti uu ku beeniyey in sayidku uu dilay wadaadka Aweys. xilligaas ay reer galbeedku sheegayaan in uu dilku dhacayn ah uu sayidku joogay gobolada waqooyi, halkaas oo uu ka abaabulayay dagaaladii lala galay gumaystihii Ingiriiska. ujeeddada laga leeyahay arrintan been abuurka ah ayaa waxay tahay in taariikhdiisa la wasakheeyo, qabaa'ilka qaarna loo muujiyo in uu necbaa. hadallada taariikhda galay ee sayidka waxaa ka mid a ka hor inta aanu halganka bilaabin xilli uu ka soo degay Berbera ayaa waxaa qabtay sarkaal Ingiriis ah oo gumaystaha ka mid ahaa, waxaana uu ka dalbaday in uu bixiyo canshuur. laakiin sayidka ayaa waxa uu ku jawaabay, adiga yaa kaa qaaday canshuurta. 1900 ilaa 1920 dagaallo badan ayaa dhex maray ciidamadii muslimiinta ee daraawiishta iyo kuwii gumaystaha Ingiriiska. kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ahaa Afbakayle, Faradhidin, Cagaarweyne, Daratoole, Jidbaale, Dulmadoobe iyo kuwo kale. dagaalkii ugu caansanaa waa kii lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska Richard Corfield, ninkaasoo ay Soomaalida u taqaanay Koofil, ahaana taliyihii uu sayidku ka tiriyey gabaygii caanka ahaa ee adaa Koofilow jiito dunida joogayne. sayidka iyo ciidankii daraawiish waa ay ka guulaysteen gumaystaha iyo kuwii la socday ee dabadhilifyada ahaa, waana midda keentay in loo adeegsado diyaarado iyo maraakiib. Soomaaliya ayaa sidaasi ku noqotay dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo diyaarado iyo maraakiib loo adeegsado. diyaaradaha Ingiriiska oo uu noocoodu ahaa DH9 waxay duqeeyeen Jiidali, Taleex iyo xarumihii sayidka oo dhan, laakiin diyaarada dhul ma xorayso. sidaa darteed gumaystuhu kuma guulaysan inuu loodiyo daraawiish. ugu dambayntiina wuxuu adeegsaday sun uu ceelasha biyaha ugu shubay, taasoo ay ku baxeen khalqi badan oo uu sayidku ka mid ahaa. dabra cudur adduumay iyo furuq wixii dadkii xaaqay annagu diidi mayno marba dayno wacaaye. ninkii tiisa loo dayn hayaa haygu diirsado kolna haddaan cidna laga daynahayn mawdka dabaqiisa ninka haatan nagu diganayow dan iyo xeeshaada. hadda oo hal qarni laga joogo halgankii daraawiish waxaan aragnaa in dadkii cadowga ahaa ee uu waddanka ka difaacayay la odhanayo walaal, sida xabashida iyo gumaystayaashii caddaanka oo dalka ka sameynaya waxyaabihii uu sayidku ka carooday oo ay dadka qaar u sacbinayaan.
laakiin waxaa xusid mudan in dhashii daraawiishtu ay ka dagaalamayaan waddanka iyada oo weliba la dhihi karayo aqoon iyo xirfad badan ayay dheer yihiin awoowayaashood maadaama ay haystaan fursado aanan xilligaasi jirin taariikhda sayidka iyo daraawiish waxay u baahan tahay in wax laga barto sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan waxa uu ka waramayaa waxa laga faa'iidayo sooyaalkaasi taariikhda sayidka iyo daraawiish waxaan ka baranaynaa inay taariikhdu mar walba xusto kuwa mabaadi'da iyo qiyamka wanaagsan u dagaalama kuwa cadowga la saftana ay qashinqubka taariikhda galaan tusaale waxaa ku ah sayidka iyo raggiisii taariikhdooda ilaa maanta waa laga sheekeeyaa muslim iyo gaal intaba waxaa la sheegaa in madxafka lagu kaydiyo taariikhda boqortooyada ingiriiska uu ku yaalo dhowr qolal ah oo lagu kaydiyey taariikhdii sayidka iyo daraawiish halkaasoy gaaladu ka daraasayso sheekhaas mujaahidka ahaa iyo xertiisii casharada usoo dhigay halka kuwii dabadhilifyada ahaa ee ingiriiska la jiray aanay maanta jirin cid hal buug oo yarba allaha ka dhigay ka qortay marka halkaa waxaa nooga muuqata in dadka wanaagsan ee gaalada la dagaalama uu ilaahay magacooda iyo maamuuskooda raajinayo adduunka khayr wanaag iyo sharaf ayay ku noolaadaan aakhirana jannaan ilaahay uga rajaynaynaa halka kuwa cadowga la saftay aysan adduunkan magac iyo dadnimo haysan aakhirana cadaab iyo cara ilaahay ay sugayso ragga maanta ka howlgalaya dhufaysyadii sayidka iyo aagagiisii waxaan ku leenahay nin aabbihiis isu ekaysiiyey eed ma gelin waxaad ogaatiin in dhabbihii ay awoowayaashiin iyo aabbiyaashiin idiin jeexeen aad ku taagan tihiin gadaal marna ha uga noqonina dadka idinku xeeranna waa kuwa idinla jira sida awoowayaashiin kuwa kale ula jireen iyo kuwa idinka soo horjeeda sida awoowayaashiin kuwa uga soo horjeedeen u sabra sidii raggii idinka horreeyay u sabreen ka run sheega waxa aad u taagan tihiin oo ah kelimadda alle oo la kor yeelo iyo kelimadda gaalada hoos loo dhigo shicaarkiina iyo halayskiina u dambeeyaa ha noqdo laa yu'tayanna alislaamu min qibalina أخي فامض لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفت ها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا boqorradii iyo suldaanadii soomaalida ma ahayn oo keliya dadkii sayid maxamed colaadiyey amaba daraawiish naafeeyey waxaa kuwaasi uga halis badnaa aftahanadii cali dhuux lahaa cali jaamac haabiil lahaa yuusuf ibraahim yuusuf dheere lahaa oo in badan ku dadaalay inay dhismaha daraawiisheed kala furfuraan dadweynaha taageersanna ka yaaciyaan markaad u dhabbagashid maansooyinkii ay raggaasi sayid maxamed u tirin jireen ku arki maysid wax dareen ah oo ay taliskii shisheeyaha ka qabeen laakiin sayidka oo ahaa gabyaagii qarnigaas ayaa afka ciidda u daray dabadhilfyadii dicaayadda ku hayay mar uu kuwaas iyaga ah wadar ahaan ula hadlayey oo uu u sheegayey dandarada ay qaayibeen dulliga u dambeeyana uu dareenkooda gelinayey waxa uu ku maansooday hay tiri hora rag ugu lumay himiiladoodiiye hawaadooda beenta ayay hebello eedeene waxay hoosta gaaluga jiraan inuu u hiishaaye asna inuu halaagu rabaa hogob ka tuuraaye uu horkaca naarta iyo holacyadeedii hunguraa u geeyaye anfaca hooya muu oraane hantidooda inuu dhoofiyuu haabka ku hayaaye oo uu weliba ugu hanjabi dhiifna u hadlaaye ay hoos indhaha uga rogaan sidaa haweenkiise habaar baa ku biiriyo cuqubo waalid oo horaae inuu hoysto mooye wax kale show umay hariine waxaa hubaal ah taariikhdu inay sayid maxamed u xusuusan doonto jihaad deeqbixin geesinimo hal adayg iyo aftahannimo qofkii raba sayid maxamed wuxuu dhabtii ahaa inuu ogaado ha ka aqriyo meerisyada aan ka leexleexadka lahayn ee uu ku leeyahay
dagaalkii nasaarada anaa daalib ku ahaaye dalka melihid anigaa ku idhi dooraweynaha daliilkii rasuulkii anaa doonayoo helaye anaa diiday maantuu lahaa deeqan iga hooye diinkayga anigaan ku gadan dabaqi naareede anaan labada daarootan hore derajo moodayne. sidoo kale waxaa ka mid ahaa hadday soo cabaadaan cadcad iyo saraakiil haddaad soo cafuuftaan ciiddaa masaalkeed cimrigay intaan jiro cadow hadduusan ii turin inkastaad carootaan ama aad soo caruuftaan marna inaan cabiidsamo caqligiina yay gelin. waxaa ka mid ahaa cimrigay 900 haddii lagu siyaadeeyo nimankii iblaysigu salladay suruq anaan keenin sadarkayga kuma taal sahal inaan u raacaaye. waxa kale oo xagga mabaadi'da ka mid ah nin aqdaamo faranjiya maantiyo abuuriin ama aaladda u sida ama awrtaba u rara ama arigaba u qala ama laba ugaarsada ama uba ilaalo ah ama uurka kala jira ashahaado been iyo islaamnimoha lagu dhaqo ilaahayna nama odhan anna ma oggolaan karo. sayidku waxa uu ahaa nin hamigiisu aad u sarreeyo waxaana gabayada ka markhaati kacaya ka mid ahaa haddaan waayay calan layn ashriyootan iyo nairobi miyaan waayay naamuus janniyo daalac iyo naasil. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عليك. sayidku mabda'iyan wuxuu u socday inuu ummadda gaarsiiyo dowladnimo cirif ilaa cirif waxaana ka markhaati ah dhowr beyd oo uu kula hadlayay wadaad xumayaashii gumaystaha la safnaa. idinkaa dalkaba leh ee dowlad ma u ahaataan ileen doqoni calaf ma leh dulbaax maxaa ka baylahay. sayidku waxa uu ahaa nin aragti dheer oo ka shidal qaata diinta wixii uu ku sheegay gabaygiisii dardaaran ayaana waddanka qabsaday waxyar kadib geeridiisii. dabadhilifyadu markii sayidku ay la dagaalamayeen shisheeyaha iyaguna ay kula goobanayeen waxay aaminsanaayeen in haddii laga adkaado ay gumaystaha ka heli doonaan maamuus islamarkaana uu dhulka iyaga u dhiibayo waana sida ay aaminsan yihiin kuwa maanta balse waxaa dhacay sidii uu sayidku sheegayey. 2 sano kadib wuxuu ingiriisku qabsaday boqortooyadii hobyo ee isaga la safnayd weliba wuxuu xabsiga u taxaabay suldaankii hobyood taariikhduna waxay ku beegnayd 1924. tallaabadaasi waxaa u xigay ingiriiska inuu weeraray boqor cismaankii sida indhola-aanta u taageersanaa kaasoo uu xabsiga u taxaabay. intaa kuma ekaysane boqorkii iyo suldaankii intuu silsilado ku xiray ayuu xamar geeyey. ingiriiskii ku oodnaa berbera wuxuu isku fidiyey ilaa laascaanood isaga oo gumaysi daran ku bilaabay dadkii taageerada u ahaa ee barwaaqada ka sugayey. talyaanigii ku oodnaa xeebaha marko iyo xamar wuxuu la soo baxay kibir isaga oo isku fidiyey min baydhabo ilaa mudug. gumaystayaashu waxay qaadeen tallaabo hubka dhigis ah. howlgal uu talyaanigu ka sameeyey dhulkii uu qabsaday oo dhan waxaa la sheegaa inuu qorigiisa la dhuuntay hal nin oo ceelbuur joogay. haddaba sow ma dhaboobin hadalkii sayidka ee ahaa marka hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiisiiye. waana arrin maanta lasoo cusboonaysiiyey oo aan aragno in hubkii laga dhigay ganacsatada iyo bulshadii muqdisho kadibna sidii la doono laga yeelayo. intaa waxaa xigay talyaaniga iyo ingiriisku canshuur ayay ku soo rogeen waddanka iyadoo intii ay daraawiishtu dagaalamayeen aan lagu dhicin in dadka canshuur laga qaado. halkaa waxaa dhab ku noqotay oraahdii sayidka ee ahayd dirhamkuu idin qubahayaad dib u go'aysaane. waayo markii hore wuxuu dabadhilifyada siinayay sandareerto wuxuuna u ballan qaaday inuu dalka horumar gaarsiinayo laakiin in iyagii la gaarsiiyo iska dhaafe hal qarni kadib xilligaas oo maanta ah waxay ingiriiska iyo xulufadiisu boobayaan khayraadka dalkeenna iyadoo aan la soconno shirkii lagu xaraashay khayraadka dalka inuu sanadkan 1440 ama 2019 ka dhacay magaalada london. hal qarni kadib haddii aan indheheenna ku aragno hadimada gumaystaha sow ma habboonaa inaan dib u xisaabtanno. sida uu sheegayo sheekh suldaan markii uu sayidkii meesha ka baxay gumaystahana dhulkii qabsaday dadkiina dullaystay xaqiiqdiina dibadda u soo baxday ayaa waxay soomaali bilowday inay ku calaacasho allah haddaan sayidkii taageeri lahayn sow nooma wanaagsanaateen. markii sheekhu uu geeriyooday ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto dad aad u tiro badan baa garwaaqsaday wixii mataqaanaa sheekhu uu waday iyo hawshuu waday. dad badan baa markii hore gumaystaha la socday oo ha noqdaan mataqaanaa maaragtay qabaa'ilka odayaashii haystay qaarkood oo kaleeto oo tiro badan ha ahaadaan. marka waxyaaba badan baa loo ballan qaaday
oo markii hore lagu hubeeyey si sheekha ula dagaalamaan markii dambe markaa sheekhu dhintay ciidankii iyo wixii mataqaana kala jajabeen oo laga yaabo cisaabaad yar oo mataqaana sii dagaalamo mooyaane wax badan inaanay harin ayaa markaa reerihii hubkii laga dhigay oo hubkii laga qaaday waa la adoomiyey sidii sheekhu mataqaana gabaygiisii dardaaranka ku sheegayay maartay waa la adoomiyey waana sida hadda ay rabaan haddad badan bay mataqaana soo dhaweynayaan oo hub siinayaan oo dhulkooda soo degayaan oo ay dhawaysanayaan oo cumalo ka dhiganayaan marka ay dantooda gaadhaanna waxay laayaan waxay sameeyaan ayay ka dhiganayaan nimanka wax ka fakadaa ma jiraan xitaa dadka dhaawac ka fakadaan ee loo geeya ama keliya ha kala baxaan ama beer ha kala baxaan xitaa ma cafinin islaamaha ama ha kabsadaan ama ha farxumeeyaan marka gaalo wax allaala waxay dhaafaysaa mama jirtoba dadku mataqaana dee ilaahay diintii markay ka jeesteen ayay qaafiliin noqdeen mooyaane walan tardaa canka alyahuud walaa nasaara xataa tattabica millato raalliba ma noqonaya si allaale si ay raalli kaaga noqon karaanba ma jirto xitaa nolol kuma ogola oo wanaag wax allaale waxay ku ogol yihiin ma jirto marka dadka hubka baa laga dhigay rag tiro badan baa markaa gabaya tiriyey oo mataqaana maaragtay faarax nuur uu ka mid yahay xaaji aadan xitaa laftiisa gabay laga soo qaataa qaasim baa ka mid ahaa xitaa dadkii markii hore sayid ku kacsanaa ee mataqaana salaan carabi iyo baa ka mid ahaa gabaya calaa calateeye way badan yihiin taasna maaragtay waxay dhalisay in mar la garwaaqsaday marka garwaaqsiga maanta markuu dhintay iyo markii uu jabay wuxuu waday la ogaanaya maalin bay mudnayd in la ogaado dadku markaa maanta u baahantay inay baraarugaan aboorkuna dhaleeriyo wuxuu ciid isugu dhoobay ama uu dundumadowga dhigay ama uu dheeraystay wajinaacu dhilada ka qabay inuu ka dhuntaaye haddaan cadowga soo dheelmadkaa la iska dhorofin dhexda maalintu ka galee dhagarna ku geysto dhirifiyo ororod sida runtaa kama dhiciyaane abwaanadii gumaystaha ka calaacalay daraawiish kadib waxaa ka mid ahaa abwaan faarax nuur waxaana uu yidhi ingiriis rag guulaayay baan cidi ilaa weyne axmed gurey unuunkay jareen ehel ha waayeene oo maarna waad wada ogtihiin uubti loo qodaye sayidkii addoonsiga nacbaa aakhiro u tabiye halyeygii bashiir bay dharaar adhaxda gooyeene qaasimna waa tuu 60kii lahaa allow yaa darwiishkii farriin dabacsan gaarsiiya salaan carabey oo ahaa nin sayidka gabayo ku caaya ayaa geeridiisii kadib markii lagu digtay lagana dalbaday inuu kaalintiisa ka qaato ayaa waxa uu yidhi maxaan kaga digtaa ruux la dilay sow ma daba joogo abwaan baasarce oo isna daraawiish kadib laga dalbaday inuu wax ka soo dhoweeyo nin ingiriis ah oo ka mid ahaa madaxda gumaystaha oo hargeysa ka soo degayay sida maantaba ka dhacda garoomada diyaaradaha ee dalka ayaa waxa uu ku calaacalay awowgay ninkii indhaha tiray ninkii aabbahay addoonsaday ninkii aniga i iibsaday ninkii ifka igu adduun tiray haddaan ogahoonan ka aarsan karayn haddaanan aadanow unuunka jarayn asaagli'ibaa ishaa i baddee ninkaa araggiisa uurkan ka necbee aan ooye albaabka ii xidha abwaan cumar xuseen isteeliyah abwaankii caanka ahaa ee alifay gabayga geel ah ee ninka laxaha sii dhowrayow ayaa isaga oo ku halqabsanaya dhulkii hawda ee uu ingiriisku xabashida ku wareejiyey una muujinaya inuu ku abaaldhacay maadaama in badan oo dadka ka mid ahi la shaqaynayeen ayaa waxa uu isaguna ku calaacalay boqorow ingiriis in badan baan wada joognoon afkiis uun baranaynay uunkana waan iska raacnay oo askar baan u ahayn il ninkii ku caddeeya ama eeba ku fiiqana annagaa u tegaynoon oggolayn xumihiisa jarmal waan isku eednay oo raggayagaa ku idlaaday oo ardina laygama siin abaalkan ka sugaynay arligaynu lahayn iyo xooggii aan la ag joognayba amxaaruu ku wareejay oo uur ku taalliyo ciil iyo utun baannu qabnaa odayaashii horeetiyo axdigay la qorteenna ilowyo ka tallaabsay halkaana waxaa ku dhaboobay hadalkii sayidka ee ahaa dawaa lagama helo gaal haddaa daawa dhigataane xaaji aadan oo la yaabay sida gumaystuhu uu maskaxda iyo qalbiga uga dulaystay soomaalida ayaa isna waxa uu yidhi abeesada dusheedaad xariir amuya moodaane ilkaha balaayada qabay kugu asiibtaaye abkaynimaan ahayn iyo qariib hay ammaanina 40 sanaan meerayay oo waan ogsoonahaye addin hadduu kudkuda kaa cuno iyo oofta iyo lowga awalkiisa waad sahashataa aadir xoqataaye ayaamaha dambaad soo dhacdaa aramidiisiiye awbaashta nimanka ahoo aradka boobaya dhicle iyo kinaayaba u idhi inaad ogaataane haddii islaabtu idin owdan tahay hadalku waa uufe arwaax maqan ajsaad khaliya baan u addimayaaye
aragaha darbeelaan dariiq u ifinayaaye dabkaasi olole haddii xaabada loo agaasimo haddii aad afuuf tiri ramaad waa amuur culuse bisadahaad akhlaaqdiyo dabciga uga ekaateene haddaanayse oraahdu faa'iido tarin aamuskaa wacane ammaano allah meel eberabaan oohow ka hayaaye sheekh bashiir sheekh yuusuf sheekh xasan oo ka mid ahaa dadkii ku dhashay xaruntii daraawiishta kaasoo geeridii sayidka kadib isagu abaabulay jabhad dagaal lana jihaaday ingiriiska ayaa la dilay sannadkii laakiin waxaa xanuun lahayd sidii jasadkiisa loogu cayaaray oo soomaali loogu dullaystay waxaa la keenay magaalada burco uun badan baana u soo daawasho tegay waxaase dadkii fagaaraha soo xaadiray ka mid ah 2 hablood oo ay kala qabeen ninkii ingiriiska ahaa ee burco haystay iyo midkii ka sarreeyey ee gobolka haystay mid ka mid ah habrahaas iyada oo tan kala tusaysa ayay sheekha cagta ka saartay wejiga dabadeedna ka fayday maradii saarnayd cag iyo laad ayayna ugu sii dareen muhiimadda qisadani waxay tahay markay daraawiishi jihaadaysay waxan oo kale kuma dhicin ingiriis laakiin markii uu hubsaday in waddankii uu hantiyey ayuu dhaqanxumadan u bareeray waxaana gabay ka tiriyey xaaji aadan duhur baa bashiir lagu shannaqay daar agtiina ahi damal la hargalaabay jabsheen waqay dulloobaane dahriga iyo laabtay rasaas kaga daloolsheene isagoo dam iyo dhiig leh oo mara ku duuduuban dadkii uu necbaa iyo kufraa daawasho u yimide dacsad iyo ihaaniyo cag baa loogu sii daraye meydkiisa oo daahira markii dibadda loo jeeday nimankii dilkiisii qirtiyo idinka duunkiinna kolkii aaska loo diiday waad wada dul joogteene ma damqane jirkiinnii kolkaa waad ku digateene nasab haddaad durriyaddii tihiin kama dareerteene hadraawi oo xilligan noolna waxa uu yidhi markii aan garraadaha taariikhda kala guray ilaa gogoldhiggiinnii galabtaad iswacateen taladana in lay galo baarliin ku goyseen ilaa gooshkan maanta ah hadimada igaadhiyo waxaad geysateen baan gocashada xasuustee maxaan reer galbeedow godobkaa tirsanaya talyaanigu wuxuu koonfur ka geystay xasuuq ba'an kili asayle wuxuu maalin keliya ku dilay in ka badan 2,000 oo qof asayle waa gacan biyooda biyaha webiga lagu gaarsiinayay meelo ka fog si beeralaydii talyaaniga ah iyo mashaariicdii beeraha ee talyaanigu biyo loogu helo wuxuu ku yaal meel u dhow qoryooley waxaana si qasab ah loogu qodi jiray dadka soomaalida ah ayada oo la jirdili jiray la gaajaysiin jiray oo si daran loo ciqaabi jiray waxaa la sheegay in muddo yar ay ku xasuuqmeen kumanaan soomaalidii lagu shaqaysanayay ah dhimashada faraha badan ee ku imanaysay dadkii lagu qodayay gacankaas ayaa sababtay in loo bixiyo asayle ama kili asayle maxaa yeelay dumar badan oo raggoodii lagu shaqaysanayay ayaa asay qaaday talyaaniga gaar ahaan dumarkoodii ma jeclayn inay dhiiqada kabahooda gaarto sidaa darteed waxaa waddooyinka la safi jiray kumanaan soomaali ah oo lagu amri jiray inay si siman waddada u jiiftaan si loogu dul socdo dulligaas abwaaniintii ka calacalay waxaa ka mid ahaa cali xuseen xirsi waxa uu gabaygan ka hortiriyey odayaal dabadhilifyo u ahaa gumaystihii talyaaniga akhyaartan imaqlaysiyo odayaashatan joogow sida awr hayinoobay oo alaabtii qubi waayey ummadda la raraayo ee usha loogu daraayo ma weydaan arkahayn webiyaashan asayliyo jannaalaha kan agteenna siduu abeeso dilaayo rag guulaayay abayle ee la dhacaayay alwaaxa ee afka dhiigu da'aayiyo agoontii yaryareedee aabbihii korinayay uu unuunka ka gooyey miyaan taa la arkaynin hablaheennii ugbaa iyo ooryihii aad qabteen ee markii ay umuleen laga tuuray ilmaayee lagu abuur falanayay taa miyaan la arkayn haddaba intan oo hadimo ah oo uu gumaystuhu inoo geystay iyo dhibaatada uu maanta inagu hayo ma waanay waano inoogu filnayn miyay inoo cuntantaa nimankii sidaa inoo naafeeyey inaan nebiyo moodno oo aan dabanashlayno naruurana ka sugno dalku wuxuu u baahan yahay badbaadin soomaalida 70% waa dhallinyaro cidda ay mas-uuliyadda inteeda badani ku dhacaysaahi waa iyaga sii tahriibaya amaba qurbaha uu barafku ku dilayo ama kubadda lagu mashquuliyey xilli ay dalkii qabsadeen dhallinyaro kenyaati iyo etoobiyaan ah oo dhallanteedka banooniga ka doortay qoriga ugu dambayn ummaddan shabaabkeedu hanan wow ayaan xumo itaal gabe dadkiinnii hore weydin aragtaane
idinkaa ammaanada xilkii eeggan qaabiliye